نصر قشين أن لكلنا عبد واحد علمي عمر قنجح oo kamid ahaa ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dawladii ku-meelgaarka Soomaaliya isla markaana Soomaaliya wasiiro iyo xildhibaano haddana marti ku ah dalka Mareykanka gaar ahaan state-ka Minnesota waxaana ka weydiiyay ujeedada safarkiisa isagoo arintaasi ka hadlaya waxa uu yiri bismillaahir rahmaanir rahiim safarkaygu waa mid caadi ah oo aan rasmi ahayn oo si aan isaga soo fasax qaatay iyadoo dad badan oo ama Soomaali ah ama qaraabo ama saaxiibo ay jiraan marka wax rasmi ah aanu idin jiraan laakiin sidaas ku yimid mudan Cabdi Waaxid Mareykanka ayaa timid shirar kala duwan ayaad ka qayb gashay waxaad la kulantay jaalidaha Soomaalida ee qaybeeda istediyada kala duwan ee jooga bal markaad fiirisay maxaa kaaga soo baxay intii aad joogtay dalka Mareykanka Soomaalida joogta Soomaalida joogta waa dad soo qaxay oo dalkoodii ka yimid laakiin kulli horumar nololeed iyo mid dhaqaale iyo wax nolol ka sameeyay haddana kulli hadii qofku dalkiisii iyo dhaqankiisii haddana sidii ay ahayd dhaqankiisana wuxuunba iska bedelaya noloshiisina qaab kale ayay yeelanaysaa laakiin kulli dad wax walba leh oo nool oo xagga ruuxiyada Soomaalinimaduna runtii ay u nooshahay oo aad iyo aad u tabaya dalkoodii oo in badan oo hilow badan u qabta ay ku jirto yaan ku arkay dad wax walba leh laakiin ummadda qaxday inay u fiican yihiin maahan uma xumo dadka aan arkay mudan Cabdi Waaxid khudbadihii kala duwanaa ee aad ka jeedisay dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Minnesota hadalladaadii waxaa ku jiray in dalku xaaladihiisa ay khatar ku jiraan haddaba xilligii aad mas'uuliyadaasi aad haysay miyaysan kuu muuqan maxayse tahay xilligan waxa kugu beegay inaad sheegto waxaan aad uga xumahay xilligan ma sheegin mar walba waa sheegay mar walbana way ii muuqatay khatar kalena ma ahane anigu waxaan sheegayaa waxay ahayd ummadda Soomaaliyeed inay ogaato kaliya in dhibaatada meesha ka jirta ama dalka ka jirta in cidda ka bixi karta hadday dadaasho ama iska saari kara ay iyaga yihiin laakiin awood kale iyo cid kale oo inta dal Soomaaliya la yiraahdo oo nabada oo xasiloon oo wanaagsan dad inta gacanta ka saara subax ka tagaya inaysan jirin laakiin gacantooda iyo dadaalkooda iyo taladooda iyo wadajirkooda ay tahay kaliya waxa ay kaga bixi karaan intaas ay ahayd horena waan u aaminsanaa waan ku shaqaynayay waana ku hadlayay haddana waa intaas waxa aan sii dhiirigelinayaa markaad eegto qaabka mas'uuliyiintii kala duwanaa ee dalka Soomaaliya soo maray oo ugu hooseeyo sarkaal oo ciidan ugu sareeyo madaxweyne ilaa iyo ra'iisul wasaare iyo ra'iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiiro iyo xildhibaano marka ay xilka ka degaan bal maxay tahay waajibkooda isleedahay hadduu xilka dega markasta waa muwaadin waxa la wuxuu wadankiisa u geysan karo oo cod iyo calaf iyo dadaal iyo waxqabad iyo dareengelin iyo wacyigelinba inuu sameeyo oo uu muwaadin u taagan hagaaga wadankiisa iyo horu socodka ummadiisa inta laga raba inta weeyo markasta hadduu xil hayo iyo hadduusan haynba markaad eegto qaabka macnaha mas'uuliyiinta dalka soo maray waxaad moodaa in gebi ahaanba ay dalka isaga tagaan ama qaarkoodba ay bilaabaan dagaallo ama misaal oo kale ay mucaaradada ay kiciyaan waxyaabo noocaas oo kale bal arrinkaas bal miyay kula qurux badan tahay salaadu niyow marka ugu horeysa haddaad hadalka meeshaan ka bilaabo haddaad aniga mucaaradnimo adiga u aragtay hadalkaygana kuma jirin kumana hadlin mucaaradnimadana waxun uma aqaano laakiin hadda wax la mucaarado naf laba ma hayno marka wax yar oo aan naf ku jirin inaan habadilo qiimaba kuma fadhido wax in la yagleelo oo la kabo oo la hagaajiyo mar walba u baahan weeye waxa inoo hor yaalla haba yaraatee dhaqanka mucaaradka asagoo ila qurxoon
yaan waxaan uga turaa markasta waxa jira inaysan itaalkeeduba ka bixi karin in la mucaarado laakiin in la yabyabaa ay ku roon tahay aniga dhaqankaygu saas weeye haddaad dhaqanka aragtay waa jiraan ummado badan oo markaysan maamulka markaas ayagu ka tirsanayn wuxuu inay iska dhabqaan jecel oo badan waa iska badan yihiin anigu markasta faatixadaydaan la daba taagnayo ilaahu hagaaji baan idhaahdaa laakiin wixii ummadda anfici waayana uma duceeyo oo runtii inaysan ummadda u ficnayn way ii muuqataay oo allow hagaaji ma dhaho qofkii aan waddanka waxba ka anfacayn laakiin haddana mucaaradnimadu maahan wax anigu aan ku hormaro ama wax weyn aan sameeya ayadoo aan ogahay inay fiicanto toosin tahay mideeda constructive-ka markaan dhinac kale ka eegno intii aad ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahayd howlo fara badan ayaad soo qabateen laakiin maxay bay kula tahay isleedahay sababaha loo dhisi layahay qarankii ciidamadii qaranka Soomaaliyeed ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxa loo dhisi layahay wax ugu weyn waxa weeye markasta dhaqaale la'aan weey ciidan inta la tababaro qalabkii u baahnaa waayay oo logistics u baahnaa waayay oo maxaan ku iraahdaa wax uu kaga awood iyo itaal roonaan karo cadawga uu la dirirayo waayay hadee niyad jabka uu qabi karo waad garanaysaa mar walbana cilada uu qabay sidaa weey waa dhacdaa in ciidamo la tababaro waa dhacdaa in ciidamo markasta la aruuriyo laakiin waxa ciidankaas la socon waaya intaas weey waxaana ayaan daraaho wixii aan ka hadlaayay kamid ah beesha caalamku inaan anagu amniga iyagaas isugu filaano oo aan meel gaaro oo ay saldhig u noqon lahayd wixii aan sheegayay nalama sameeyaan xaqiiqadii haba yaraatee nalama qabtaan ciidamada مثلا dalka jooga oo kharash badan iyo xoolo badan ku baxaan markii loo qaybiyo 100 meelood meel hadii ciidanka iyaga caalamku ugu taageeri lahaa oo tartiib aan u soo kaban lahayn ciidan fiican oo waxa noo samaysmi lahaa higsan lahaa inuu dalkiisii iyo qarankiisii nabadgelyadiisa mustaqbalka dhow asagoo ku filaado oo meel gaaro laakiin waxa ayaan daraa arintaas lama helo hadii la helana wax macna leh oo ku filan himiladaas in la gaaro maaha meesha ciidankeenu sida u leeyahay inta weeye institutionskii dawladda oo inaynu waxaan ka baxano oo anagu inaynu ugu yaraan xoogaa wax soo yabyabano isku filaanana waxaad moodaa inaan mar walba si fiican aysan u dhisnayn ama loo hagaajin marka kulli hawl bay u baahan tahay waxa ugu weyn waxa weeye dhaqaale la'aan iyo dadka laftigiisu aad moodaba meelo badan inay dawladnimadiisi loo hilmaamayo wadaniyadii iyo kalsoonidii si ay u dilantayo laakiin waxay tahaba waa wax u baahan hawlgal iyo wacyigelin iyo dadaal badan iyo muwaadiniin nafta u hurta in la soo celiyo qarankii iyo u baahan tahay laakiin mislaadahay sababaha burburiya dawladihii ku meel gaarada ahaa waxay dhisayeen ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed dawladii siyaad bar sidoo kale ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed waa dhistay haddana dawlad kasta oo jirta markii ay ayadu ka tagto booska banayso ciidamadu way burburaan haddaba meel dhigi kale siyaasiyiinta xilka siyaaya ayaa sii burburiya niyahow waxyaalo badan oo arrinkaas markii laga hadlayo anigu la khaldo aniga caqligaygaan kuu sheegaya ciidankii dagaalkii labaad galay waxba kama noola hadduu ka nool yahana waa oday habsaday oo liita ciidankii Soomaaliya oo ciidan noqon karay haddii ay dhacdo waayihii u dambeysay ciidan lama qoran jirine 26 jir iyo 27 jir askari haduu jiray hadda konton buu jiraa askari furfurcoon oo ordama noqon karo laakiin hadda oo kale wuxuu noqon karay isbatoore xoog laho instructor oo tababaro ciidanka oo wax qaban kara buu noqon lahaa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed iyagoo qiimahooda la garan karo haddii maanta la keeno oo la soo aruuriyo ciidan active oo furfurcoon ma noqon karo laakiin khibrad badan oo ku jirto oo laga aruurin karo oo laga heli karo oo ay ku beeri karaan kuwa yar waa ku jirta laakiin ciidan active oo xoog badan oo ku ahaan jiray laga filan karo laga heli karo waxaas laga heli karaa ciidan mid cusub oo bedela abuuri kara laakiin mislaadahay ciidamada milishooyinka kala duwan ee jooga dalka haddii inta laga saaro magaalooyinka la geeyo xuduudaha dalka oo tababar iyo dhaqan celin loogu sameeyo taasi waxa ay ka bilahayd dhismihii ciidamada qaranka waxba anigu sidaas waxaan u oran lahaa meelaha la geeyo iska daa haddii dalka lagu tababaro ciidanka oo
ay tababaraan weliba la heli karo dad tababaraha dadkaad hadda ka sheekeynaysay oo saraakiishoodii iyo maxaan ku idhaahdaa ciidankii hore wixii tababar samayn karaa ciidan ay tababaraan isla markaas kabacdi tababarkaas markay helaanna weli waa hubaa tababarkii way siin karaan haddana qalab ku filan la siiyo ciidanku inta uu u baahan yahay intaas weeye meel kaleba ha geynin laakiin ciidan wadamo kala duwan la geeyey oo meelo kala duwan lagu soo tababarayo haddana qalab aan lahayn oo meesha lagu soo tababarayo aan tabtoodu isla socon oo wadaniyadooda aan la soo dhisin ciidanka Soomaaliya markii la qori jiray waxaa la qori jiray nin reer miyi ah oo nin reer miyi dowladnimo in badan kama yaqaano laakiin tababarka markuu ka soo baxo ninkaas wuxuu ahaan jiray isagoo wadaniyadu ka muuqato wadanka inuu u dhinto xataa la gaarsiisay uu tababarka la yuu dhamaysan jiray isagoo tab dagaal leh isagoo awood military iyo qalab leh isagoo ruuxiyad iyo dareen wadani ah oo uusan waabanayn ku jirto uu tababarka ka soo bixi jiray intaas wadan dibadda ah qof lagu soo tababaray kala imaan mayo intaasba meesha uu ka heli karaa Soomaaliya wey marka Soomaaliya gudaheeda in lagu tababaro markii lagu tababarana xuquuqda uu muwaadinkaas uu leeyahay oo ciidan ku noqon lahaa oo niyad ku hayn lahaa inuu helo wey intaas isu keen raacila waxa ciidanku u istaagin ayaan intaa wey laakiin ma isleedahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sababaha ay la dhismi laayihiin waxaa qayb ka ah in macnaha beeluhu ay maamulo gaar ah ay sameysteen oo beel kastaba dadkeedii ay si gaar ah iyadoo ay u maamulanayso sidaasna ciidanka qaranka Soomaaliyeed inuusan mar dambe inuusan dhismin laga yaabo arrintaas sidaas ma aniga iguma muuqato waa run oo dalkii deegaan baa loo kala joogaa laakiin ka soo qaad haddii deegaan walba ciidanka jooga la tababaro ciidan walbaana deegaanka asagu markaas uu joogi karo ama uu joogo uu amnigeeda sugo oo amnigu markaas isgaaro oo dhinac walba gaaro aakhirka waxay ku dhammaan doontaa ciidanku deegaan iyo ma gobol iyo ma yeelan karee carrigii oo nabad ahaa inta ciidankaas la isku dhafo sidii la yeeli jiray iyo qaranka oo dhan iyagoo isku dhafan meel walba mid walba waxaa la geynayaa meeshii uu ciidanka ka noqon lahaa oo loo kala bedeli lahaa laakiin duruufta lagama boodo haddii ciidan la yiraahdo Baydhabo ha laga qoro ciidan reer Baydhabo uu noqonayaa gada ha laga qoro waa reegado laakiin weynay gado xoreeyaan weynay Baydhabo xoreeyaan weynay xoreeyaan marka iyo dhulkii weynay Puntland nabad ka dhigaan intaasoo nabaduhu markay isu timaado ciidanka akhiiran inta la isu keeno hal maamul uu yeesho hal talo uu yeesho xataa federaal haddii la noqdo ciidankaas hal maamul buu yeelanayaa iyo hal taliye markaas la isku daraya wax la qabanaya laakiin salaado wasay ku qabataa loo tukadaa baa la yiri duruuftu waa wax caadi ah oo qabsada dadka haddaan kula kafto ma laga yaabaa xilliga kala guurka 2016 markii la gaaro ama madaxweynaha xilka haya markuu xilka baneeyo inaad jagada madaxweynimo u soo tartan niyahow aan dhaho af Ingiriis aan ku dhaho it's too early to decide laakiin waxa weeye waxaan kuu sheegi karaa hadda anigu siyaasadda waa ku jira ilaa qaran Soomaaliyeed oo salmuga u fariistana siyaasadda ilaahay idankiisa waa ku jiraya anoo muraadkayga ugu weyn uu yahay in aan ilaahay ugu daro ama aan kamid ahaado ama aan horseed u ahaado ummad Soomaaliyeed oo tubta saxda u qaaday qarannimo in la helo waa ku jiraya waqtigaas ilaa ilaahay ugu simaa waana okay maxaad soo jeedinaysaa shacabka Soomaaliyeed ku daawanaya ama dhageysanaya daafaha caalamka jooga waa la socotaa Ethiopia qaxooti baa jooga Soomaaliya ku dhibaataysan waa la socotaa Kenya dhibaatada hadda shacabka Soomaaliyeed ku haysto qaxootiga Djibouti in baa joogta dalalka kale caalamka dad baa ku nool oo macnaha qaar baa xabsiyada guri u ah bal arrinkaas maxaad ka leedahay shacabka Soomaaliyeed waxaan u soo jeedinayaa qaxooti baynu nahay nabad baynu la'anahay inaan qaxootiga ka baxno iyo inaynu nabad helno iyo inaynu qarankii Soomaaliya oo jira helno inaynu dadaalo oo inagu aan sameeyno bay u baahan tahay waxaana aan ku sameyn karaa waxa ina dilay inaynu naqaano waxa ina dilay inaynu qabiilku nala weynaado qarannimadii aynu fahmi weynay waxa ina dilay inaynu is-aamini weynay waxa ina dilay inaan cadowgeena aynu garan weynay
ummadda Soomaaliyeed marka waxaan ku oranayaa aanu midowno inaynu qaran helno oo Soomaali noqono oo nabadeena soo ceshino ciidamada ajnabiga ah waxay inagula joogi karaan qaab dhig joojina laakiin nagulama joogi karaan inay inta noo soo celiyaan qaran Soomaaliyeed oo nabad oo boqolkiiba boqol waxaan marnaba la sugayn weey kana dhibaya iyo kan ina dilaya inagu inagu dhaxnooliya guri walbuuna joogaayo godka ma soo baxay gurigu ka soo toosaa xataa hadduu cunugaagii yahay waxaa qurux badan haddaad tuhmayso inuu ummadda Soomaaliyeed uu dhibayo inaad adigu inta qabatid aad tiraahdo ninkan dalka ha laga qabto falagaransa iyo markaas wax lagu hayaba lama arkay inta la qabto xabsi lagu ridaa waxaa laga yaabaa inuu ku soo bixi lahaa isagii oo caqli u soo kordho wax u soo kordheen kulligeen aynu boolis u noqono nabadeena kulligeen aynu ciidan u noqono nabadeena kulligeen aynu madax u noqono nabadeena iyo qarannimadeena aad iyo aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa Cabdiwaaxid Cilmi Goonjeex oo igu warramayay hotel Holiday in Express Mall of America Minnesota 22 bishii 5 2014